السلام عليكم. qisadan waxay ka dhacday dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Florida. Dhacdadani waxay ku saabsantay qoys aad iyo aad caan uga ahaa magaaladaasi. Soo dhawow channelka subscribe noo saar. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba qisadani waxay ka dhex dhacday sidaan hore u soo sheegay magaalada Florida, taasi oo ka dhex dhacday family-gaasi oo ka koobanaa 4 xubnood: aabbaha qoyska, hooyada iyo 2 carruur oo ay dhaleen. Haddaba aabbaha qoyskani waxa lagu magacaabi jiray Chris, hooyadan xagga lagu magacaabi jiray Shannon. Haddaba Chris iyo Shannon waxay isku dhaleen 2 ciyaala oo habla ah. Labadan ciyaala waxa la kala oran jiray Bella iyo Salis. Bella waxay ahayd curada oo waxay jirtay 4 sano, halka Salis oo ku xigtay ay jirtay 3 sano. Haddaba family-gan buuxa ayaa waxay caan ka ahaayeen magaaladaasi ay deganaayeen. Mar allaale marka ay israacaan amba meelaha ay dalxiiska ku jiraan, waxaa loo arkayay qoys aad u qurux badan, aadna iskugu faraxsan, aad family buuxa ah. Xaafadda ay deganaayeenna jaarkooda waxay sheegeen waxay yihiin qoys aad isku fahansan oo mar walbaabana iyagoo qurux badan oo faraxsan ay mar walbaaba farxad ka muuqato. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah, Shannon, horta marka hore Shannon gabadhan uu qabo Chris waxay ahayd gabadh aad u firfircoon dhanka shaqada iyo dhanka gurigaba. Waxay ahayd gabadh aad iyo aad u firfircoon oo dhan walbaaba ka adigu karti miidhan. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa Shannon, gabadhan uu qabo Chris, ayaa waxay ka shakiday ninkeeda Chris. Deeto Shannon waxay samaysay baaritaankaasi oo ahaa inay daba gasho ninkeeda Chris, kaasi oo ka shakiday. Haddaba Chris xaaskiisa Shannon waxay soo ogaatay in ninkeedu uu ku dul khiyaamay gabadh kale amba uu la saaxiibay gabadh kale. Sheekadu markii sidaas u socotay, ninkii Chris ahaa waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday amba go'aan uu qaatay in uu samaysto qoys cusub, qoyskiisa horena uu meesha ka saaro. Deeto ninkan Chris ah waxaa ku soo dhacday ficil aad iyo aad u xun oo argagaxa oo dadyowgii magaaladaasi ku noolaa amba dadkii la jaarka ahaa aad ula yaabeen, aadna uga naxeen. Haddaba ninkii Chris ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii Shannon oo ka timaaday safar shaqo oo shaqadeedii ay ka timaaday ayaa markii gurigii sidaa u soo gaadhay kadankii ayaa ninkii Chris ahaa oo guriga jooga oo cariirtii la jooga ayaa wax nabar culus amba walax culus buu madaxa ka jaray. Deeto carruurtiioo arkaysa ayuu ku hor dilay amba uu nafta ku dhaafiyey hooyadood. Deeto ninkii Chris ahaa uu qaaday, wuxuu gebigii inta meydkeedii uu bac ku duuduubay uu geliyey, ayuu baabuurkiisii halka dambe ka geliyey. Deeto carruurtii ayuu soo qaaday, iyagana gaadhiguu geliyey, u kaxeeyey. Deeto ninkani wuxuu geeyey meel uu hadda ka hor ka shaqayn jiray oo kaalin shidaal ah. Deeto kaalintaasi shidaalka ayadii markuu sidaa u geeyey ayaa waxa uu ku dhex riday meydkii 2 carruur hooyadood haan weyn oo shidaal. Deeto 2 carruur haydna wuxuu ku sameeyey ficil aad u xun, taasi oo iyagana uu nafti dhaafiyey markii dambe. Haddaba ninkii Chris ahaa markuu meydkii sidaasi u asturay oo ku dhex riday haantaasi weyna shidaalka, uu iska yimaaday magaaladii, shaqadiisii buu iska watay ninkani. Deeto gabadhii Shannon, gabadh kaloo ay saaxiib yihiin, ayaa moobeelkeedii soo garaacday. Deeto way ka qaban weyday,
maalintii ku xigtay shaqadii may iman Shayna. Deeto gabadhani ay saaxiibka yihiin Shayna way shakiday. Deeto waxay ka shakiday gabadhan Shayna ma ahayn gabadh shaqada ka jarjarta amba ka daxdaahda oo waxay ku ogeyd gabadh karti badan oo nacni mar walba way wada xiriiri jireen oo moolkii fariimaha loogu soo jawaabay. Xitaa qoyska xaafadeeda toos uma abaarin laakiin xaafadihii jaarka ayay weydiisay ee ku tiri ma ka war haysan gabadhii Shayna ayaamahan lama soo xiriirin shalay shaqadii may iman. Deeto waxay ku yiraahdeen annaguna ayaamaha maanu arag ilaa baarlamaanu saarin. Deeto gabadhii saaxiibadeed aad bay u shakiday. Deeto hadu waxay qaadatay go'aan adag ah inay booliska la socodsiiso xaaladan. Deeto xaaladii waxay la socodsiisay booliskii baa adigu markiiba gurigiiba degdeg ku yimaadeen. Deeto gurigii markay sidaas u soo gaadheen ciidankii waxay arkeen kaabaheedii iyo shandadeedii iyo adigu alaab kale dawooyin ku sidatay oo kadinkii yaala iyo albaabkii oo furan. Deeto dhankii baarkinka ay u kaceen gaarigeedii u yaala adigu guriga baa la galay. Gurigii wax qof ciyaal jooga iyo cid joogtaba waa la soo waayay. Deeto ciidanka waxay sameeyay baaritaan xoog leh. Deeto ninkii Chris ahaa ee caruurtiisa iyo naagtiisaba dilay wuxuu sameeyay isagu markuu arkay xaaladan iyo uu istaasraaciyay wuxuu soo duubay video ah anigu waxaan u baahanahay in la caawiyo xaaskayga caruurtayda iga maqan in la garab galo baan doonayaa. adu xaalad video wax aranayo oo uu leeyahay aniga maalmo badan baa xaaskayga caruurtayda iga maqnaayeen dawladda waxaan ka codsanayaa shacabka in la raadiyo. adu hadallo noocaasi ah ayuu muuqaalka dhexdiisa ka dhex sheegay. Deeto qolo dadweynihii uu soo baahiyay amba Facebook isticmaala ayaa waxay soo qabteen ninkani ficiladiisa iyo habku u hadlaayo iyo qaab ahaantiisa body language-kiisa eegeen. Deeto halkaas waxa uu cadaatay inuu ninkani wax u qarinayo. Deeto ciidankii baa la socodsiiyay ciidankii baa fiidiyowgii daawaday isla shakigaasi run buu noqday. adigu ninkii baa loo tagay shakigii adu waa la soo kaxeeyay oo biigi baa la keenay. adigu markii hore uu cadeysan waayay wuxuu yiri anu waxa ma sameey anigu waan dulmanahay caruurtayda iga maqan xaaskayga iga maqan. adu ninkii cadaadis xooga markii cadaadis xooga la saaray ayuu markii dambe qirtay. wuxuu yiraahdaa aniga xaaskayga saasan ku sameeyay caruurteen saasan ku sameeyay meedkoodina halkaasaan nacni aan ku asturay. adu meeshii baa la tagay meedadkii wixii baa laga soo helay. adigu shacabkiiba aad u kacayo ninkii bay ku kaceen. Deeto ninkani markii maxkamadiisa ay gaadhay ee maxkamadii la soo istaajiyay ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis iyo damaanad toona lahayn. run ahaantii qisadani waa qiso aad iyo aad u dhow oo waxay dhacday 2018 bishii Oktoobar 13 waa qiso ay dadyowgii Mareykanka iyo dadyowgii caalamkuba ay aad iyo aad ula yaabeen. run ahaantii aniguna aan la yaabay. bal adiga ficil wixii commentigaaga ama falcelintaada bal commentiga noogu soo qor. aad iyo aad baad mahadsantiin. channel kale kor inoogu qaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.